waxaan ugu hambalyeeynaya sanad guurada 65aad ee ka soo wareegtay maalintii xorowgii gobolladii koonfureed iyo midowgii labadii gobol ee Soomaaliya ee ku aasaasantay jamhuuriyaddii Soomaaliya 1 Luulyo 1960 oo ay hadda naga xigto daqiiqado kooban runtii daqiiqadahaas haray hortood waxaan rabaa inaan hambalyo u diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ugu hambalyeeyo xasuusta ay xasuusan yihiin maalintan oo runtii maalin ku weyn ah waxaan sidoo kale runtii munaasabadan rabaa inaan uga faa'iideysto abaalmarintii aan halka ku siinay askarigii mutaystay dalacaadda iyo shahaado sharafka wuxuu ahaa astaan aan ka soo qaadanay guulihii iyo sheekooyinkii badnaa ee yaabka lahaa ee ka dhacay Calmiskaad oo runtii askarta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan na xasuusinaysa siday u dagaalameen oo geesinimada leh siday dalka cadowga ugu xoreeyeen siday ugu diideen dhulka Soomaaliyeed meel ka mid ah hadday tahay buur iyo badba in cadow ajnabi uu ku soo duulo ninka dhalinyarada ah wuxuu tusaale u yahay oo soo qaadanay in uu la mid noqdo taariikh fara badan oo 100 sano ka hor ama 70 sano ka hor halgankii Soomaaliya ugu jirtay siday dhulkeeda ugu xoreyn lahayd cadowga oo marar badan lagu soo celiyo sidii taariikhdii Xalane taariikhdii Xawataako geesiyaal fara badan oo dhulkan u soo halgamay waxay muujinayeen muddadii SYL ururadii kala duwanaa gobonimo doonka ahaa kii daraawiishta iyo kuwo fara badan oo runtii dhammaan geyga Soomaaliya ka jiray waxay taariikhdu qortaa niman dhalinyaro ah oo runtii u bareeray inay cadowga dhagartooda dalka Soomaaliya ka qabtaan ninkaas wuxuu leeyahay taariikh aan rajeynayno inay buugaagta lagu qori doono wuxuu ka mid ahaa dadka waxyaabaha nafurnimada leh gaarka sameeyay dagaalkaas la sheegay 5 bisha dhacay oo dagaal qaraar oo ahaa dagaalada ka mid ah dagaalada foolka ah cadowga iyo ciidanku ay isugu tageen inuu ku guuleystay inuu isaga iyo saaxiibkiisa oo dhaawac uu na badbaadiyo ka badbaadiyo cadowga uu ku guuleystay inuu ciidamadii ku soo hogaamiyay meeshii ay ku jireen isaga oo bad qaba dhaawaciyo bad qaba inay ciidamadii halkaas ka soo furteen cadowgii oo dhanna ku laayeen runtii waa taariikh badan oo geesiyaal badan oo noocaas ay jiraan laakiin midda tani waa muunad yar ama sambal aan ugu talagalnay inay nagala qayb galaan ciidamada Calmiskaad maadaama ay dhiman tahay qiimeynta iyo abaalmarinta dadkii mutaystay waxyaabaha ka baxsan waajibaadka caadiga ah oo ciidanka dhan wada lahaayeen oo waqtigeeda imaan doonta laakiin waxaan uga faa'iideysanay sarkaalkan inaan uga faa'iideysano munaasabadan oo dadka Soomaaliyeed aan wali xasuusino inay jiraan dhalinyaro u heelan oo gaajo iyo haraad iyo dhul adag diyaar ugu ah inay cadowga ka xoreeyaan runtii astaantaas waa astaan wali Soomaaliya ka jirta waana astaanta sahashay in dhulka Soomaaliyeed oo 35 sano dhibaato gaar ah ka jirta haddana uu ajnabi xor ka yahay oo la qabsan horena aan loo baaragtay 35 sano waxaas nasiib darro ah in cadowgii dibadda markii laga difaacay cadow badan oo gudaha ah oo runtii hadda aan la kala saarsaarayn oo Soomaali ah in ay wili diidan tahay in dalkan uu xasilo dalkan inuu cadiisa ku istaago arrintaas runtii waa arrin aan dadka Soomaaliyeed qaban waana fariin maalin walba inaan niraano 1 Luulyo 26 Juun baan u dabaaldegaynaa waa ceeb iyo yaxyax haddaan dhulkii Soomaaliyeed lahayn haddaan dawlad Soomaaliya oo mid jirin haddaan dadku dareenkiisa ka sokow wada shaqayn dhaba aysan jirin arrimahaas waxay ku ceeb tahay cid kastoo hoggaan Soomaaliya u haysa ciday doonto ahaatay anigoo ku hadlaya magaca Puntland waxaan halka rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto
puntland inay diyaar u tahay inay dhismo dawlad soomaaliyeed oo sal adag ay qayb ka qaadato dhismo dawlad soomaaliyeed oo mar dambe aan leecin dhismo dawlad soomaaliyeed oo mar dambe aan ka oohisiin ubadka iyo haweenka iyo inta jilicsan dhismo dawlad soomaaliyeed oo aan cadow u soo hanqaltaagin dhismo dawlad soomaaliyeed oo argagixiso aysan u soo humbaalayn dhismo dawlad soomaaliyeed oo cadaalad ku dhisan federaal ku dhisan isjacayl iyo maxabo ku dhisan wadajir iyo midnimo ku dhisan waxayna ku imaan kartaa wadahadal dhab ah iyo heshiis dhab ah waxaynu u baahannahay haddaan nahay hoggaanka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan inaan xaqiiqada wajahno inaan runta abbaarno dalkeenni waad ogtihiin qayb ka mida oo xorriyaddan 26 iyo 1 luuliya nala dabaaldegi jirtay baa maanta gees taagan oo rabta inay dhacdo midnimadii aan keennay waa ku khasaarnay hadday ku khasaareen iyo haddii kaleeto waxay u baahan yihiin garnaqsi iyo gogol ballaaran oo loo siman yahay oo arrintaa lagu soo afmeero oo si kastoo lagu xallin karo lagu xalliyo waxay u baahan yihiin iyagu gaar bayba istaageene gobolladii kaleoo soomaaliyeed waa kala maqan yihiin waxbay kala tabanayaan duruufo adag bay ku kala jiraan nin walba gaarkiisay ku qabsatay puntland waxaa gaarkeed u qabsatay duruufo qallabsan waxaa gaar u leedahay oo aanan soomaali la wadaagin colaaddii ka dhalatay buuraha calmiskaad iyo calmadow colaadihii ka dhashay badda ee burcadbadeedda ah oo puntland gaar u heshay duruufo kaleoo qallafsan oo aad u badan baa soo maray waxaan ka xumahay kuwa iyo kuwo la mid ah inay dhammaan geyga soomaaliyeed ee gobollada soomaaliyeed oo kale inay ka jiraan waa dhibaato inay soomaali isku gurman weyday waa dhibaato inay soomaaliya ay maanta ajende qaran oo midaysan ay yeelan weydo waa dhibaato soomaaliya inay maanta mid qura ahaan weydo oo isku calool ahaan weydo in xaqiiqada laga boodo ma habboona waxaa jira kala tabasho waxaa jira dareen waxaa la isku khilaafsan yahay dastuurkii waxaa la isku khilaafsan yahay nidaamkii dawligaha waxaa la isku khilaafsan yahay say dawladda soomaaliya u ekaanayso siday maamulada ahaanayaan siday heerarka dawladdu kala noqonayso arrintaasi shacabka soomaaliyeed way ku mahadsan yihiin hadday dalkii xorriyaddiisii magac ahaan u ilaaliyeen cadow ajnabiyana ka ilaaliyeen laakiin soomaali waxay ku guuldarraysatay inay dalkeeda argagixisada ka xorayso inay dalkii ay nidaam midaysan u samayso in dastuur midaysan loo sameeyo marar badan ayaa waxaa dhacaa qolo walba qolada kale eed inay u tiriso eed waxba noo tari mayso laakiin marar badan baan waxaan ku celinnay puntland waxaan diyaar u nahay garnaqsi waxaanu diyaar u nahay miis wadahadala oo furan oo dareenka dadkaan annagoo ka matalayna aan soo bandhigno waxaan ka codsanaynaa maamulka dawladda federaalka ah maamulada dawladda xubnaha ka ah dadka soomaaliyeed oo dhan dareenkooda inay intay meel isugu wada yimaadaan heshiis laga gaaro qaabka dawladdeennu ay noqonayso haddii kii lagu heshiiyey 2004 ee dawladaha maanta jira lagu dhisay ee federaalka ah wax laga gansaday waxaa la rabaa intii laysu yimaado in la yidhaahdo dib ha loo fiiriyo waxaa marar badan maqashaan puntland waxay diidan tahay dastuurka waxaa lagu heshiiyey in waxa qabyada ka ah la dhammaystiro laakiin heshiis laguma aha in dastuurkii hadda jiray wixii dhignaa la beddelo dastuurka hadda socda ma aha dhammaystir ee waa waxba ka beddel waxaa la beddelay dhammaan mabaadi'dii asaasiga ahayd waxaa meesha la rabaa in laga turo nidaamkii federaalisimkaha waxaa meesha la rabaa in laga turo xuquuqdii dadkaan ay lahaayeen oo maanta aan cidna ka soo celin karin puntland waa la garanayaa dalkan markii ay dawladdii dhexe ee ahayd dawladda sentraalka ah burburtay maanta siday tahay waa la garanayaa barxaddaas maalintaas iyo maalintaas ay u ekeed waa la garanayaa gobollada iyo degmooyinka puntland siday ahaayeen waa la garanayaa arrintaas arrin dadka soomaaliyeed oo dhan dan u ah weeye gobol kasta degaan kasta oo soomaaliyeed wixii wanaaga oo gobol iyo degmo ka jira waa la wadaagaa gobollada puntland degmooyinkeeda waxaad markhaanti ka tihiin soomaali oo dhan inay ku idishahay oo ay kala qoqob ku dareemin oo ay ka wada dhoolaadaan oo waajibaadkiisa ay u wada siman yihiin oo xuquuqdiisa loogu wada leeyahay waxaan rajaynaynaa gobol kasta oo soomaaliyeedna inuu sidaa noqdo
inta hadda cadowga iyo duruufaha haystana ilaahay ha ka saaro waxaan diyaar u nahay Puntland haddaan nahay dowrka aan ku leenahay dowlad dhiska inaan qaadanno annaga oo runtii mar walba ku tuuntuunsanayna war waxa heshiiska lagu yahay hal la ilaaliyo arrimaha siyaasadeed ee mararka qaarkood madaxda qaybtood leeyihiin iyo dhismaha dowladnimada la rabo inay waarto oo haddoo kale 65 sano kadib aan u dabaaldegayno oo aan rajeynayna sida dowladaha qaybtood 100 sano iyo kumanaan loogu dabaaldego waxay u baahan tahay sal adag waxay u baahan tahay qaanuun aan la badbedelin waxa la rabaa dastuur madaxweynaha yimaadaba uusan wax ka fartayn waxa la rabaa dawlad ninkii hadda markaa jooga shaarkeeda isla ekaysiin dadka ha loo dhaga nuglaado hal la aqbalo dareenka dadka dawladnimada waxaan diyaar u nahay oo aanan rabnaa inaanan wax gaara ka lahayn Soomaali waxaan cadeynaynaa waxa aan doonayno inaan cod dheer ku sheegno haddii waxa aan doonayno ee heshiiska lagu yahay wax ka duman oo ka wanaagsan noolahayo shacabka reer Puntland ha loo soo bandhigo ma aha in aan la qanciyo ma aha golaha wasiirada in la qanciyo ma aha nin siyaasiya oo dan leh inuu dadka wax u sheego waxaan ka digayaa dawladda Soomaaliya oo ognahay inay duruufo badan haysato oo ognahay argagixisadii inay gobolladii koonfureed fara badan ku hayso oo ognahay ciidamadii Soomaaliyeed inuu burbur badan ku dhacay waxaan nasiib darro ah in maalin walba wiilal laabtoobyo wata ay leeyihiin Puntland baa ciidamo ka qorayna oo qarsoodiya oo hadda meel ka laalaabanaya waa falxumo waxaan ka baqaynaa in dadkaasi aqligooda dadka ay ku cayaaraan waxaan rabnaa siyaasiyiinta reer Puntland ee meelaha kala jira hadday dood qabaan Puntland waxay u gudubtay nidaamka doorashooyinka waxay leedahay asxaab waxaan ogolnahay nin walba aragtidiisa iyo dhaliishiis waxaan rabnaa inaan kala saarno dhaliilaha iyo arrimaha siyaasiga iyo arrimaha qaanuunka ah iyo sharciga qofku xaq uma leh inuu dastuurka sidoo raba ka yeelo dhaliil waa jeedin karaa damac siyaasadeed waa yeelan karaa loolan iyo xudxudasho waa yeelan karaa laakiin inuu dastuurka iyo qawaaniinta dalka intuu ka xadgudbo haddana uu leeyahay xasaanad baan leeyahay wax isqabta maaha qofka dhahaya xasaanad baan leeyahay oo Puntland kala burburinaya wixii laga yeeli lahaa haddii far la qaadana waxa leeyahay dadkii baa la caburinaya dadow gartay idinka inii dhiibnaye dalkan ilaashada dawladnimadana ka shaqeeya aad baad u mahadsantihiin waqtigii baan nahaye wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh